kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shaqaalaha dawladda ee degmada dollo xubnaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya degmadaasi dollo shacabka iyo ardayda ku dhaqan degmada dollo ee gobolka Afdheer ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee degmadaasi waxaana kulankani ka soo qayb galay mas'uuliyiinta degmada Wararkii gudoomiyaha degmada dollo mudane Cabdi Muuse Daahir iyo kabineetka degmadaasi odayaasha hooyooyinka culimada iyo dhalinyarada iyaguna kulankani ka soo qayb galay ugu horeyntii waxa kulankani lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedka oo ay soo bandhigeen kooxda dhaqanka fanka iyo suugaanta ee degmada dollo waxaana kulankani ujeedadiisu ay mid looga wada hadlayay si adkeynta howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka socda degmada dollo taageerada guulihiisa shirweynihiisa sideedada xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya isla markaana loogu waramayay bulshada qorshayaasha ka soo baxay shirweynahaasi sideedada iyo kaalinta ka qayb qaadasho ee bulshadu ay leedahay kulankan ayaa waxa furay isla markaana ka hadlay gudoomiyaha degmada dollo mudane Cabdi Muuse Daahir isagoo ka waramay horumarka ballaaran ee ka hana qaaday degmada dollo inay suuragal ka dhigtay ka gonaanshiyaha mas'uuliyiinta xukuumadda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya isla markaana waqtigan ay degmada dollo ka faa'iideysanayaan bulshada ku dhaqan guud ahaan adeegyada asaasiga ee dawliga maanta shirweynaheenan xisbiga markasta uu rubuc dhamaado rubuc kasta uu dhamaado rubuc kalena bilaabay aynu qabanno noo caadiga maanta qodobada ugu waaweyn waxa ugu waaweyn in aan ku dardargelino hawlaha rubuca labaad ee dhinaca horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban guulahaasi cid keentay xubnaha xisbiga halka fadhiyo weyn guulaha waaweyn koow waxa ka ahaa abaabulkii waxbarashada gudoomiyaha degmada dollo mudane Cabdi Muuse Daahir waxa kale oo ka waramay xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya oo kaashanaya shacabka deegaanku horumar ballaaran ka sameeyay siyaasadaha horumarinta bulshada oo ay ka mid tahay siyaasadda dejinta lagu hirgeliyay in bulshada xoolo dhaqatada deegaanka lagu bedelo xoolo dhaqato beeraley oo ay ka mid tahay bulshada ku dhaqan degmada dollo waqtigan ay si habsami leh uga faa'iideysanayaan barnaamijka dejinta 20,000 oo qoysas gaaraya ayaa maanta loo degan oo beerihii magarasada wax kala soo baxay dhulka tabcanaya si saboolnimada looga baxo dhankoodana bulshada ku dhaqan degmada dollo ayaa sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan shirweynihii sideedada xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ka dhacay gobolka Nagob xaruntiisa degmada fiiq taageersan yihiin dhamaanba waa miirtiyo qorshayaasha xisbiga ee ka soo baxay shirweynahaasi iyagoo tilmaamay in ay ka qayb qaadanayaan barbar taagan yihiin howlaha xisbigu ku horumarinayo deegaanka Soomaalida gaar ahaan degmada dollo waxaan ballan qaadanaynaa haddaan bulshada degmada dollo in sidii ruuxii hore aan uga qayb qaadanna ruuxa labaad isla markaana howlaha horumarka iyo nabadgelyada kaalinta aan ku leeyahay haddaan bulshada ka qayb qaadanayno shirweynihii sideedaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida iyo Itoobiya ee lagu qabtay gobolka fiiq degmada fiiq shirweynahaas oo runtii haddaan degmada dollo aan aad iyo aad ugu faraxsannahay natiijooyin ka soo baxay horumar la taaban kara shacabka aad ku najaxay muuqdo yaa ka jira degmada dollo haddii ilaahay yiraaho inaan sii wadno oo maaragtay ilaa intihada laga rabo oo horumar aska gaara waan ballan qaadaynaa inaan maamulka anaga ku taageerno oo garab istaagno oo fulino kulankani shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya degmada dollo ayaa gabagabadii la isku qaatay in la sii xoojiyo howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban loona wada guntada sidii bulshada ku dhaqan guud ahaanba degmadu ay uga mira keeni lahaayeen qorshaha rubuca labaad ee u dejisan sanad miisaaniyadka 2007 ee dhanka horumarinta bulshada degmada dollo ee gobolka Afdheer